qodobadan halkan aan kaaga sheegayo waa kuwo kaa caawinaya oo tahay inaad baraarugsanato hurdada ka kacdo naftu hadii walwalku kugu bato wad walwalaysa maanta oo dhan nafta waxba ka maqan waxa ka maqan inaad baadi goobta weeyaan maxaad walwalaysaa waa su'aasha meesha taagan walwalku badi wixii maadaama tashwiish waa markuu shaydaanku ka faa'iideysanayo oo markuu ku leeyahay wixii tagay baa sanad ka yeeshay sanad samaysay maxaad waxaan qam weyday iyo mar ana balaay ba jiro laakiin hada naftu iska walwalaysaa jira marka walwalka badi waxa keena markay ruuxdu cuntadeeda u baahan tahay salaadii dhikrigi ducadii cibaadada gaabinin waayo marka cibaadadu qofku gaabiyo walwalka ku bad ya mashquulka iyo tashwiishka adduunkan ayuu kugu furaya because meel baa maran meel baa maxay meeshii limitki loogu talagalay ka soo gaabnaanaya marka walwalku markuu kugu bato amba qofka uu ku bato waa markii ruuxdu cuntadeedii u baahan tahay ya taasi waa mid walwalku qofka wuxuu ku badan karaa markuu waxyaalihii uu hore u soo maray una cashar ka qaadan uu su'aashu isweydiinayo waay bay u dhacday waay bay san u tahay waay bay san igu dhacday sabab baan hore ugu socon lahayahay walwalka caynka ay soo noqnoqonayaduna waxay kamid tahay waxyaalaha markay arimo ay kugu soo wajahaan sida aad doonayso u dhici waaye inaad dimaad aragtay inaad istiraahdo niyo waxaan ahay qof cashar qaadanaya adduunkan arrimihiisu igu cusub yahay kuma soo dhalan ma ogi ma haysto maanta warqad la ii dhiibo la leeyahay arintaas ku qabsanaysa meesha fasal baan ku jiro cashar baan baranaya marka wixii igu dhacay maxaan cashar ka qoran karaa dad suran weydo walwalku isaguna wuu bataa marka marxalad kasta oo kugu soo gudboonaata waxa loo baahan yahay inaad noqoto kii casharka ka qorto wixii hagaagi waayena hagaajiya amba iskaga hara hadii ku culus tahay oo fahmeen amba oo qaadi karin wixii uu hagaajin karana oo hadii dib ula soo laabto arrimaha waxyaalo uu ka hagaajiyo imka gaarigaagaasi hadii wax ka xumaadaan gaariga wada tuuri meyside baloonada iyo meelaha ciladu ka jiraan baad ka bedelaysaa marka naftan waad u baahan tahay ayada ku wada marka ha iqaabin naftaada waad u baahan tahay waa ayada wax ku wada waa ayada wax kula xalinaya waa ayada waxa weeyaan arin walba u dhaqaaqayso kula sameeynaya marka nafta lama yaqaabo lama la kibriye waxa weeyaan u mahad celi marka arin ku qabato amba waxa ku hirgalo amba waxba inuu ku hirgelin nafta u mahad celi waxa tirada haddaan khaldamayna bashar baan ahay waa ka soo laabanaya hore inuu soconaynaa haddii aan arrimahan ku guuleystayna shukran nafta u mahad celi nafta waxa weeyaan inaad collaboration la samayso inaad partenariat la samayso naftaada ha kibrinin hoosna u dhigine waxay mudan tahay si waayo kula shaqeynaya adiga isku dhaxnool Soomaa marka walwalku wuxuu imanaya walaalayaal san sheegay marka ay ruuxdu gaajoonayso dhikrigeega si xuska Ilaahay badi iyo marka waxyaalaha ay kugu dhaceen marxalado kugu soo wajahan haddaad fayl garayso iyo haddaad hore ku socotayba aanad casharadeedii ka qaadanin ka labadaaba u fiirso insha Allah waxaad ka qaban karayso ka qabo ku dadaal naftu hadii caajis ka bixi weydo waxa weeye walaalayaal dariiq baanad u jeexin maanta la bari waxa ma sameyn saandaba waxa ma sameyn halkiina waad fadhidaa amba waxa tahay qofan di waxba ku baraarugsanayno TV-gaas ka daawanay telefoonkiisa iskaga jiro kolba ku tukaan hor fadhiyo kolba makhaayad dhex fadhiyo waxbay naftu hadii caajis ka bixi weydo oo wixii aad maanta qaban lahayd aad bari kolba u dhigayso warning way waa sida telefoonka aad saacada ku buuxsatay inaad toosto jirkaaga naftaada ku sheegaya warniyow maalin kasta Saturday maahe maanta waa Sunday bari waa Monday shak kasta waxa weeye waa maalin cusub isku meeshii ma fadhiin karno naftaada waxa kugu guuxaya caajis badan markaad caajis badan iska aragto waynaad waxa weeyaan focused fast tilt waynaad shaqada ma aragtay sida amal qofku qanjiriyo kala dira boodi wayna saasoo kale aad yara dareemi karto ma fahamtay marka caajiska badani walaalayaal waxay ka dhigan tahay waa markaanad dariiqana jeex oo markaanad hadaf lahayn hadu caajisku kugu badan yahay nafta dariiqo jeex nafta wuxuu tilmaam hatta haddaanad garanayn oo wixii kugu adag yahay oo wixii kugu cusub yahay maanta caalamka bal inoo soo hel qof waxa uu ku shaqeysanayo amba heer ku gaadhay amba meeshuu taagan yahay ku soo dhashay cidna kuma soo dhalan waa la bartay waa loo dadaalay qof niyadu hayo doonaya isbedel iyo horumar umba
gaaraya meeshuu hiigsanayo. walaal haddii aanad xataa fikrado badanna maskaxdaada ku jirin waxba ma laha, zero waa kasoo bilaabi kartaa. waxay markaa noqonaysaa inaad yaro dhaqdhaqaaqdo. movementgu dhaqdhaqaaqa barakaa ku jirta, meeshii aad tagtaba information baad ka helaysaa, wixii aad akhrisataba information baad ka helaysaa, dadkaad la kulanto dadkiibaa kala baraysaa, information aad ka helaysaa. haddaanad dhaqdhaqaaqaynin halkii unbaad taagnaanaysaa. laakiin meeshaad taaganta haddaad cishaba tallaabo yar qaado, hadba meeshaad u kacdo casharaad kasoo qoranaysaa. marka qaybtaadii creativity-gii ayaad energy siisay, uu ku fikiro, uu hadba su-aal isku weydiiyo, uu isiraadaniyo maanta waxaan soo arkay maxay ka dhigan tahay. waxay ka dhigan tahay markaa baadhid wax kaloo ku gudbinaya, waxa uu ku gudbiyey markaa baadho wax kaloo ku gudbinaya. marka caajisku hadduu kugu bato waa warning weeyaan, waxa weeye meeshan iskaga kac, meeshanaad fadhido iskaga kac, wax baro, wax fahan, dadka dhexgalgal, dadka tooyo, dadka iska baro, wax akhriso, nafta wax bar. marka hadduu caajisku kugu bato waxay ka dhigan tahay dariiq noloshaada uma jeexin, hadafna ma lihid. marka taasi waa inay baraarujin ay kugu beeri karto ood ka baxda insha allah marxaladaasi. naftu haddii ay su-aalaha kugu badiso, haddaad faraxsan tahay iyo haddii aad murugeysan tahayba, su-aaluhu hadduu kugu bato waxay ka dhigan tahay walaalayaal change buu naftani rabtaa. levelkana taagan tahay khibradeedii waad haysaa, maxaad waad ku faraxsan tahay amba waad ku feelgaraysay, oo de waxay u baahan tahay inaad dadaasho insha allah. laakiin wax badan baad fahansan tahay, ama meeshan waxaad ka rabtay waad heshay, laakiin dee halkan uma taagnaan kartid. marka ay su-aaluhu kugu bataan waay sidan, maxaan halkan ugu sameyn waaye, maxaan u qaban waaye, amaba su-aalaha ah intalow in arrintan waan sameeyey kan sideen u gaari karaa, oo halkan u hebel gaadhay sideen u hiigsan karaa, oo arrintan aan bal si baan u fahansanahay haddana uma fahansaniye sidee baan u qaban karaa. naftaadu hadday markasta su-aalo ku weydiiso ood constantly aad su-aalo isweydiinayso, halkaa waa inaad ka dareensanaato naftan kugu jirtaa inay rabto change, inay hore u socoto. qaabka arrimaha waa inaan insha allah u wada fahno, sida aad telefoonkaaga u garanayso naftaadana walaal u baro. waxaa jira waxyaalo yaryar uu maskaxdaadu, jirkaagu, naftaadu uu ku dareensiinayo. maanta markaad meel u kala hayso telefoonkaad saacadda ku buuxsataa, niyadaad sii gelisaa. naftaaduna marka ay rabto inay meel u socoto amba ay doonayso inay wax ku dareensiiso, dee saacadaad ku buuxsato ma lehe, waxaynu leenahay dareen baynu leenahay, shucuur baynu leenahay, sentiment yaynu leenahay, emotion yaynu leenahay, emotion baynu leenahay, dhammaanteen feeling baynu leenahay. taas ayay tahay, taasaa wax ku dareensiinaysa, taasaa ah saacaddii ku toosinaysay. markaas maxaan soo sheegay, naftu hadday walwal ay ka bixi weydo, naftu haddii ay caajis ka bixi weydo, iyo naftu haddii ay su-aalaha kugu badiso, saddexdaa arrimoodan soo micneeyey intuba wuxuun bay kuu tilmaamayaane. naftaada waa inaad dareensanaato insha allah. marka insha allah waxaan rajeynayaa in aan in yar baldaha un iskaga yar qaadnay waxyaalo muhiima oo nafteenu u baahan tahay inaynu ku baraarugsanaano insha allah. aad baan idiin salaamayaa, maalintu ha idiin wacnaato dhammaantiin. guul 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 asxaabay insha allah, horaa loo soconayaa. salaam.